laakiin warar hoosaada aan maqlay ninka in damiinad lagu sii daayaa la damcay waxaana deynaya ninka u shaqeynayay cunug yar oon ayeedeed ahay oo wiilkaygu gabadhaydu dhashay oo dabaq laga tuuray shalayto saakana u geeriyootay oo istaalmeedii baalka xuma ku jirta digfeer meel hadduu qoyaankaan waa tirtire Soomaaliya dhabarkeeda ay jabnay feerteeda ay jabnay lagta boodada ay jabneed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ku suganahay afaafka hore isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho waxa halkan saaka 10kii subaxnimo ku geeriyootay Allah u naxariistay Maryan Mahad Caddo oo ahayd gabar saqiira oo 5 sano jir ah oo shalay 8 subaxnimo laga soo tuuray dabaq ku yaala magaalada Muqdisho dhaawac culus oo soo gaaray gabadhan yar ayayna ugu dambeyntii u geeriyootay aabaha dhalay isoo kale ayayada hooyad oo la hadlay Somali TV waxa ay sheegeen in ay walwal ka qabaan iyo cabsi in la sii deenayo ninkii dhibkan ay ku tuhmayeen maamaha cadaaladda isoo kale dawladda Soomaaliya waxay ka codseen in arintani wax laga qabto aad ay waxaan u badan tahay ilmo yar oo 5 sano jir ah oo laga soo tuuray dabaq dhowr dabaq ah taas oo dhibaato xooggan ay ka soo gaartay u dambeyn u geeriyootay Soomaaliya Maxamed meel walba ay joogtiin shalay toole abaar 2 saac subaxnimo wixii dhacay waa wada aragteen saacadan la taagan yahay abaar 4 saac oo subaxnimo gabadheedu waa ay geeriyootay waxayna u geeriyootay dhibaatada loo geystay waxa akhbaar igu soo gaartay ninka heeb ahaan ee isku xigaan in oo damaanad oo damcay inuu ku deeyay wax damaanad lagu deey karo oo Ilaahay abuurtana ma jiraan waxa damaanad lagu deeyaa qof dhib fudud oo gaaray laakiin qof naftigu waayay ma ahayn in damaanad lagu sii daayo gabadheeda way geeriyootay waxayna u geeriyootay dhibaatada ninkaas u geystay u geeriyootay ilaa amar dambane gabadheeda la duugi maayo ilowsha asiga lala duuga mooyay qalbigeyga markaas buu qaboobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof wax igala dhaxeeyay oo Ilaahay abuurta ma jiro hay'adaha ammaanka waxay ila wadaageen ninkii in gacanta lagu soo dhigay laakiin warar hoosaada aan maqlay ninka in damiinad lagu sii daayaa la damcay waxaana deynaya ninka u shaqeynayay ruuxa u xiran kiiskan wallahi dhowr qofooda u xiran laakiin hal nin ayaa aniga tuhun ahaan gabadheydana ay tiri aaba ninkan baa dilay intayna nafta ka bixin masna ay koomada ayna gelin waxa ii qorshe Ilaahay ka sukow ayaa qorshe iskale aniga ahaantayda gabadheyda inay cadaalad hesho ninka 30 jirka oo gabar 5 jir ah dilay aqliga oo ku dilay waa leeyahay carruurta ma qasab ma soo wayay ayada ayaa u yar sharcigana waxaan ka sugayaa in ninkaasii gabadheyda bartoo marsiyo la marsiyo kufsiga iyo dilka labadaba ma aragtay waxa soo saaraya isbitaalka markaan baaris aniga ahaantayda aan ku suubiyo waxa ii soo baxday wax galma anigu kuma aan arkin laakiin wixii iga horeeyay ma sheegi kari waayo waxa inta lagu suubiyaa shayga laga tirtiri karaa ma garateen qofka haween adoo qabtidba meel hadduu qoyaankaan waa tirtire Soomaaliya dhabarkeeda ay jabnay feerteeda ay jabnay lagta boodada ay jabneed caloosheeda waxa isku furi dhiig fara badan oo 2 mar iyo 3 mar aan ahayn oo laga miiray gabadheyda waxay dhibaato ugu jirtaa ninka aan idin sheegay oo hadda saldhigaas ku xiran waxaana damca inuu damaanad ku sii daayo nin la yiraaho nin lagu magacaabo Geedi Cadow ayaa damaanad damca inuu ku deeyo waana nin sargaal oo kabtana darajada looma qaadanin in dadka ma aragtay dulmiga galay lagu sii daayo ee darajada waxa loo qaatay dadka shacabka Soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda lagu difaaco هذا ما صحيح maalmihii dambe dilalka argagax leh ayaa ku soo badanay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda Maxamed Roora Somali TV Muqdisho usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahab Plus